maanta si xabal aad baa idin salaamay shirkadda TikTok ayaa waxay shaaca ka qaaday program cusub oo la dhaho TikTok Beta Program waa program runtii ku baxaysa 1 bilyan waxay article runtii soo daabacay ku sheegeen in dadka creatorska ama dadka muuqaalada halka daqiiqo ka badan soo gelin doona TikTok ee u qoonteeyeen lacag ka badan 1 bilyan hadda fursadda adiga ma ka faa'iideysan kartaa hadii ay ku dhaaftay 2012 xilliga lacag badan runtii laga sameeyay jiray Bitcoin sidoo kale hadii ay ku dhaaftay 2021 NFT-ga iyo cryptocurrency dadka lacag badan ka sameeya hadii social media Facebook iyo YouTube-ka lacag badan xilliyadii la sameeyay ee ku dhaafeen maanta waxa fursad u haystaa programka cusub ee shaacisay shirkadda TikTok in adiga ugu horeysid lacag fiican aad ka sameeyay hadaba muuqaalkan saaxib kaliya waxa uga heli doonaa saddex qodob kaliya information guud in ka siiyo programkan oo shirkadda ay shaacisay sidoo kale waxaan aan requirement-ka shuruudaha qofka laga rabo in uu gaaro inta lacagta loo furin qayb saddexaadna waxaan rabaa inaan fursad ku siiyo qaabka adiga account-kaaga aad u furan lahayd si dhaqso ah shuruudaha u buuxin lahayd magacayga saaxib waa Gela Bashir YouTube channel-ka iyo sidoo kale Facebook page-kan waxa uga hadlaa kaliya saddex qodob finance-ga baan runtii uga shaqeeyaa business-kan waan uga hadlaa garan online-ka iyo sidoo kale mindset-ka saddexdaas topic aan kugu sheegay hadii aad u xiiseynaysid fadlan follow nasada page-kan sidoo kale YouTube-kan subscribe soo waa haag saaxiib maalmo u dambeeyay waxa runtii waxa weeye muuqaalo qabsaday social media ilaa iyo maqaalo badan international ah programkan ee shaacisay shirkadda TikTok programka waxa la dhahaa TikTok Beta Program ilaa hadda waxa loo soo daayay wadamo kooban sidoo kale qaaradda America waxa loo soo daayay wadamada Brazil iyo Mareykanka qaaradda Europe waxa loo soo daayay wadamada France UK iyo Germany qaaradda Asia waxa loo soo daayay Korea iyo Japan wadamada aan soo xusay kaliya baa hadda programka lacag ka sameyn karo dadka inta kala wadamada lacag ma sameyn karaan laakiin maalin ka dambeeyay wadamo badan baa lagu soo daray doona Europe Africa ilaa Soomaaliya xitaa way ku jirtaa marka akhriyay wadamada loo ogolyahay runtii laga sameyn karo marka programka waxa ugu talagalay inta badan 1 bilyan oo dollar marka runtii maqaalo badan akhriyay waxa runtii qolaas ahaan loo sheegay inay ka badnaan doonaan lacagta Facebook iyo YouTube ay bixin doonaan taas oo macnaheedu tahay TikTok inuu lacag badan sii doono dadka creator-da marka hadii maanta YouTube-kii lacagta ay kugu yaraatay ama lacag sameyn jirin TikTok maanta fursad taala marka waxaan kugula talinayaa saaxiibayaal fursadda inaad ka faa'iideystaan technical process camerasina waa ku sheegi doonaa shuruudaha laga baahan yahay shuruudaha loo baahan yahay saaxiiba kaliya waa saddex shuruud koow in haystid 10,000 oo follower 10,000 follower kaliya in aad haystid baa laga baahan yahay inaad waxa weeye aad lacag ka sameeyso shuruudda labaad oo laga rabo in heshid 100,000 views for the last 30 days sodonki bari u dambeeyay in ay heshid 100,000 oo qof oo ku daawado simple way hadii aad waxa weeye soo dhigtid 10 muuqaal oo min 10,000 oo qof ay daawadaan shuruudaas 100,000 sodonki bari u dambeeyay bil baa ku bixinaysa ee sodon bari shuruud u dambeysana waxa way saaxiib in aad ka weyn tahay 18 hadii xitaa aad ka yartaa 18 waa fil kale parenting waxa loo baa la sameeyaa oo qofka waalidka ah baa akoon ku furayo dadna qofkaas oo creator-ka oo ka yar 18 lacagta waa loo furayaa run ahaantii saaxiibayaal TikTok waxyaalo uga fiican yahay Facebook iyo YouTube waxa weeye algorithm-kiisa uu ka duwan yahay waxa weeye labada platform hore idinku sheegay TikTok ma fiiriyo qofkan follower-kiisa waxa laga yaabaa maanta akoon afurdhay oo 0 follower ama laba qof ay ku follow gareeyaan muuqaalka u horeeyay soo galis in uu noqdo viral 100,000 300,000 ay daawadaan bariga hore algorithm-ka Facebook iyo YouTube-ka dadka subscribe-ka badan haysta ama dadka mataqaana follow-ka badan haysta kaliya buu muuqaaladooda bushkareyn jiray Facebook heli jiray laakiin TikTok gabdhaha buu noqday inkastoo hadda ay sameeyeen YouTube iyo Facebook ay ka bedeleen TikTok marka waxa xiisiyaa waa content-ga as long content-ga la daawanayo muuqaalka la daawanayo asaga waxba kama gelin follower-kaaga hadii muuqaalkan oo viral noqdaan hal muuqaal baa laga yaabaa inuu kugu soo follow gareeyaan 10,000 oo qof ama 5,000 oo hal muuqaal kaliya oo viral ku noqdo ka waran marka hadii aad muuqaalo badan oo viral sameeysid marka waxa moodaa dhanka cadaaladda uu ku fiican yahay algorithm-ka TikTok marka ka baqin hadii aad zero follower tahay in waxa weeye aad akoon cusub sameeysid insha Allah marka sidee baad ku heli kartaa saaxiibayaal follower badan aad isla markaa akoonkaagu akoon caan u noqonaya kaliya waxa laga baahan yahay in marka hore waxa weeye niche aad dowladda niche waa runtii muhiim weeye niche waxa weeye nuxur ama meel lagu soo haago tusaale kale in aad fil gaar ah ka hadasho kale dadku way runtii waxyaalo badan ka hadlo laakiin waxa laga yaabaa inuu marka follower-kaaga uu waqti ku qaato inuu community badan marka waxa kula tahay markuu niche doorto tusaale kale arrimaha caafimaadka kale hadii ka hadlaysid arrimaha caafimaadka doore waxbarashada kale dadka inuu ugu bartaan business-ka kale waxa talooyin kale waxa weeye comedy-ga kale waxyaalo mataqaana shactiro oo kale hadii xitaa ay rabto inay noqoto adiga fil dooro quraanka oo kale inay fil adiga aad jeceshahay talooyin oo kala dooro filiga wuxuu ka anfacay niche marka dooratid dad xul ah inay ku soo follow gareeyaan mustaqbalkana business hadii aad bilowdid
productgaas wax badan ka iibsanayaan qodob kale waxa inaad set up account sameeyay TikTok maanta aad u fududan yahay ama Google-kaaga baad ku furan kartaa email-kaaga ama number-ka baad ku furan kartaa ama waxa ku furan kartaa waxa weeye Apple-kaaga waxa jeceshahay baarada ku furan account inaad just 2 minutes ugu qaadanayso Google account sameeyay qodobka u dambeeyana waxa weeye just upload video muuqaalka u horeeyo soo gali dad badan baa jiro kaamirada runtii ka boqo siyaalo badan baa TikTok loo isticmaali karaa haddii aad adiga kama soo muuqanaysid oo faceless baa isticmaalaysaa cod baa voice over baa soo saaraysaa follow baa soo duubsaa waxa jeceshahay adiga marka TikTok sax by the way fursado badan baa jiro dad badan dhalinyarada hadda jiilkan generation soo dhaafay xiliyada Bitcoin laga sameeyo kana soo dhaafay xiriir badan social media xil hor ay bilaabeen lacag badan ka sameeyay laakiin TikTok way cusub yahay waa age-kaaga weeye waa waxa way eerada hadda ku shaqeynaya marka intaas aan ku sheekay u baahanta waxaan kala rabaa inaan ku door dhalinyar badan oo hore soo wajaajo ila soo xiriir dhag markii lacagaha la baxayaan oo million followers tahay qaybta ila soo xiriir jira oo wadamada Mareykanka ama Europe kale usoo guuray laakiin akoonkooda marka hore ku sameeyay Soomaaliya hadii akoonkaaga Soomaaliya aad ku samaystay wadamada hadda loo ogol yahay su'aalka Ingiriiska soo gudtay ama Jarmalka ama Mareykanka aad soo gudtay programka kuma shaqeynayo akoonka meesha lagu registereeyay waa waxa weeye numberka u horeeyay iyo location u horeeyay aad dooratay weeye lama bedeli karo kaliya waxa noqonaysa akoon cusub soo furtay waa arkay akoon cusub soo furay oo follower badan runtii waxa uu ka qasaaray aniga waxa ku siinaya in aad iska sugto xilliga lagu furayo wadanka soo hadda aniga wadanka Belgium baa jooga programka ay ma furan lacagta access ka mirihi laakiin waxa yaaba for the next 2 months inay ku soo daraan face kala wadadan badan oo soo shaqeyn doon hadda saa wajidama TikTok-ga 72,000 oo follower ba haysta markii zero ka soo bilaabo address kale aan ku xirto wadamada Jarmalka ama Mareykanka waan awoodaa laakiin from scratch ba ka soo bilaabasa dhalinyarada marka wadankii oo rabay inay sugaan oo kale waxa sameyn kartaa address waxa ku xiran kartaa qurbaha wadamadaas loo ogol yahay marka waa ku shaqeyn laakiin waa inaad account cusub zero follower aad ka soo bilowdaa number cusub ama email cusub runtii aad ku furtaa dhamaan saaxiibayaal waxa rajayn inaad ka faa'iideystaan muuqaalkan aad ma santiin